أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطيب البغدادي وحو حديث كي سكورية إني آمنة تري لما وضعته عليه الصلاة والسلام رأيت سحابة عظيمة لها نور أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال حتى غشيته وغيب عني، فسمعت مناديا ينادي: طوفوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وادخلوه في البحار ليعرفوا باسمه ونعته وصورته في جميع الأرض، واعرضوه على كل روحان من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش، وأعطوه خلق آدم ومعرفة الشيثة وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود وحب دانيال ووقار الإلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى وأغمسوه في أخلاق النبيين. مركان دلي عليه الصلاة والسلام وحان أركي ضرور وين ونور كبحيو دحديدنا أن كمقليو قرحان كفرده يشرقان تبالا دقاقيا يرد هذا الكوذا ملائك رقص كسو دكتي مركاسي ضرورتو وذا دباشي wiilkayga calayhi salaatu wasalaam oo iga qarsoomay markaasaan waxaan maqlay mid oranaya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ku soo tawaafiya qorax ka soo bax arliga iyo qorax u dhacdiisaba waxaadna dhex gelisaan badaha si ay magaciisa ugu aqoonsadaan iyo tilmaamihiisa iyo muuqaalkiisa ba arliga oo idil una soo bandhiga oo tusa wax kasta oo ruux iyo naf leh ayna kamid yihiin jinniga iyo insiga iyo malaa'igtuba iyo shimbiraha iyo dugaaga waxaana u yeeshaan khalqiga oo ah abuuritaanka aadan geesinimada nuux khilada ibraahim waxaadna siisan fasaaxada saalix xikmada luut bishaarada yacquub xooga muuse adkaysiga ayuub hogaansiga yuunus jihaadka yuushac codka daawud jacaylka daaniyeel haybada ilyaas dhowrsanaanta yaxya zuhdiga ciise akhlaaqda ambiyadoo idil waxaana dhex geli ku dhex quusisaan oo aad gelisaan akhlaaqda ambiyada oo idil kulligood si uu u yeesho dhammaan akhlaaqda mid walba oo ayaga ka mid ah u gooni ah loo siiyey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam akhlaaqdiisa wuxuu ahaa quraanka